haddaba marka iiraan maxay ka tiri xabad joojinta uu ku dhawaaqay Trump inuu iskii u kordhiyay waxyaabaha kale ee warbaahintu ay ka hadlayso waxa kamid ah waqtina uma qaban macnaha xilligaasaan kordhiyay 2 maalin 3 maalin hal toddobaad midna kuma qorna wuxuu yiri kaliya xabad joojintii waan kordhiyay taas marka waa qodobka kale waxaa la sheegayaa marka in Iiraan aanay wari inay la qaadatay xabad joojinta iyo in kale aan la sheegin laakiin xafiiska la yiraahdo Khatimul Anbiya oo ah xafiiska militariga ilaalada kacaanka Iiraan ay wararka ka soo saaraan ayaa wuxuu sheegay in ciidankoodu ay ku jiraan diyaar garow dhammaystiran ay ku jiraan sida uu leeyahay waxaana keebka ku haynaa gacanta qoryaheedna annagu marnaba cidaan aaminayno lama arko leeyahay qoladaas warkaasay soo saareen waa tahay Pakistan iyaduna waxay soo saartay war ay leedahay Trump waan u mahad celinaynaa maadaama annaga aan soo jeedinay in xabad joojinta la kordhiyo si wada hadallada waqti loogu helo marka Pakistan waxay leedahay waa soo dhaweynaynaa talaabada Mareykanka uu qaaday waxaana halkeedii ka sii wadi doonaa arinta ku saabsan wada xaajoodka in la isugu yimaado oo marka ugu dambaysa la wada hadlo qodobkaas isaguna waa wararka cusub ee soo kordhay waxa dhanka kale yana warbaahintu aad uga hadlaysaa waxa la sugayaa jawaabta aayatullaahiga Iiraan Mujtaba Khamenei ninka la yiraahdo Pakistan iyo Mareykan iyo waxoo dhan waxa la sugayaa ninka aayatullaahi la yiraahdo Mujtaba Khamenei la yiraahdo ayaa la sugayaa wali isagu xilligan aan hadlayno oo maaragtay wax yar ka hor uu Trump soo saaray warka aayatullaahiga wax waro oo ka soo baxay male waana go'aanka ugu dambeeya ninka iskale marka inay dagaalka sii wadi doonto Iiraan iyo in kale hawsha halkaas ay maraysaa laakiin waxa hadlay la taliyaha nin la yiraahdo gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan waxa uu sheegay wax macna ah oo ay leedahay male xabad joojintan kordhiyada Trump cadaadiskii wuu wadaa Iiraan waa go'doomiyuu leeyahay marka hawshaas halkaas ay maraysaa waliba hadalkiisa waxa ku jiray xabad joojintii waan kordhiyay laakiin xisaarka ama go'doominta waan ku sii haynayaa Iiraan marka Iiraan waxa ka jira ma jiraan xabad joojin la kordhiyo wax nafle oo meesha uu ninka ku hadlay oo muhiima ma jiraan Iiraan aba xabad joojinta waxa leedahay waxba ka jiraan ninka warkiis ninkii Trump aan xabad joojin isaga samaystay waqtina uma qabanin taas waa mid kale wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa war soo saartay waxay leedahay go'doominta waa lagu sii haynayaa maaragtay Iiraan ilaa haddana waxay yiraahdeen 2 markab laga qabtay markab mar dhaweyd saacado 24 saac gudahood la qabtay oo isaguna Iiraan ka soo baxay oo Singapore u socday waa la qabtay mid horena waa la hayay 2 markab la hayay mid kale Mareykanku waxay leeyihiin waxaan ku ballaarinay go'doominta Iiraan badaha waaweyn hatta bariga dhexe meel aan ahayn markab Iiraan hadda ku aragno waa qabsanaynaa u fiirsada warkaas waxay leeyihiin arintu waa ballaarinay hatta badaha waaweyn ee caalamka haddaan markab Iiraan leedahay socdo ku aragno nab aleen marka arintaasu waa dagaal toos ah sida Iiraaniyiintu ay leeyihiin oo waxay leeyihiin arintaasu wax xabad joojin oo nafle oo meesha ka soo baxay ma jiraan waaye dhanka kale marka dadka khubaradu maxay ka yiraahdeen hadalka Trump kaasa taxliil lagu sameeyay waxa la ninkii Trump ahaa wuxuu la soo booday xabad joojintii waqti aan ku daray waqtina uma qabanin sidee wax u jiraan in badan oo kamid ah dadka falanqeeyayaasha ah oo arintan aad u dorosa oo ka baaraan daga waxay leeyihiin ninka Trump ma la aamini karo
dhowr jeeroo hore wuxuu sheegay ayuu dib uga laabtay mar walbana wuxuu rabo iska soo qoraa uu sheegaa marka arintanu 100% lama aamini kare leeyahay marka Iran waa mid ay leedahay annagu ninka ma aaminayne qoryaha gacanta ku haysanaa macnaha waa diyaarsanahay waliba waxay yiraahdeen isticmaaleen diyaarsanaan dhammaystiran ayaanu diyaarsanahay macnaha meesha waxaa ka muuqda shaki fara badan iyo in la isgaadayo hawshaas way muuqataa qaar kale oo kamid ah dadka wax falanqaynaya iyaguna waxay caawa sheegeen in Mareykanka wali uu sugayo gantaalo kale iyo meelo kale uu ka soo aruurinayo oo uu bariga dhexe isugu keensanayo saldhigyadiisii meelaha uu ku lahaa oo dhan hub ka soo daldalaya waa tii dhawaan hay-adaha ka shaqeeya duulimaadyada ay tilmaameen diyaarado waaweyn oo xamuul ah oo uu Mareykanku leeyahay inay ka soo duulayeen maalmihii la soo dhaafay saldhigyada uu ku leeyahay Yurub gaar ahaan Jarmalka oo ay hub fara badan geynayeen gobolka bariga dhexe inkastoo aan la tilmaamin meelo badan laakiin waxay sheegeen Israa'iil in inta badan diyaaraduhu ay ku degayeen taas marka iyaduna waa hawl kale oo marka muujinaysa in odagu wali uu alaab isku aruursanayo oo uusan daacad ka ahayn xabad joojintan uu sheegay sida la leeyahay dhanka kale Israa'iil iyadu wax waro weyn oo hadda ay ka soo saartay male waxaa hadlay abaanduulaheeda ciidanka wuxuu sheegay Iran way diiday uraniumkeeda iyo nuclearkeeda in lagala hadlo sida daraadeed meesha wada hadal maba jiree meeshaas dagaal ay ku dhamaan doontaa ay leedahay Israa'iil waa iyadu waxay raadinaysayba wada hadalladan inay maartay burburaan oo Israa'iil iyo Mareykan si fiican ay isu dabsaaraan oo marka Iran iyo Mareykan si fiican isu dabsaaraan oo Mareykanka uu meesha marka Iran ka saaro uu ka adkaado iyaduna ay marka kaaba ka noqoto gobolka waaya hawshaas marka halkaas ay taagan tahay xaalku halkaas uu maraa wararkaas ugu waaweynaa dhanka kalena waxaa la yiri si rasmi ah ayaa loogu dhawaaqay inuusan wax socdaal ah hadda ku jirin madaxweyne ku xigeenka Mareykanka JD Vance ninka la yiraahdo ilaa waqti dambe hadda meel uu u socdo male macnaha wada hadalba ma jiro laakiin si rasmi ah loo sheegay meel ma u socdo ninka odaga hadda Washington iska jooga marka hawshaasu halkaasay maraysaa la leeyahay dhanka kale ciidamada Mareykanka iyagu waxay sheegeen in iyaguna diyaar yihiin oo ay sugayaan kaliya amarka madaxweyne Trump markuu yiraahdo haye hawshii hala galo garaaca Iran meesha ka bilaabayna ay leeyihiin iyaguna waxay leeyihiin waa diyaarsanahay waa kaas waxa ku soo haray dalalkii khaliijka qaarkood waxay leeyihiin waa soo dhaweynaynaa xabad joojinta Trump uu kordhiyay waxaana ugu baaqaynaa dhinacyada in wada xaajoodka xooga la saaro la dhameeyo marka wadamada khaliijka iyaguna cabsidooda way sii kordhaysaa haddii dagaalku uu bilowdo Iran waxay wacad ku mareen ciidanka ilaalada kacaanka Iran war ay hadda soo saareen waxay leeyihiin Israa'iil iyo Mareykankaba casharo cusubaan u dhigi doonaa ay leeyihiin marka xaalka guud waa kaas marka barnaamijkeennii koobnaa ee aanu idinkugu talagalnay iyadoo maaragtay ballantu ay ahayd oo xabad joojintu ku ekaydaan hore idinkugu sheegay xilliga magaalada Muqdisho 2:55 daqiiqo habeennimo markay tahay ayay ku ekayd xabad joojinta London time-na waxay 12:55 marka xaalku marka halkaas uu joogaa ninkii Trump ahaa marka isaga iskiis ugu darsaday xabad joojin inuu sii wadiyo marka waqtina uusan u qaban Iranna aysan wali ka hadlin haddaba wixii warar arrimahan ku saabsan ee soo kordha haddii alla idmo barnaamijyadayda soo socda ayaanu ku faaqidi doonaa haddii waxa kanu ay war Trump yihiin oo weerar hore ka qaadana oo baashu bilaabatana waa arki doonaa haddii sidaa lagu kala joogo oo xabad joojintii ay sii socotana waan sii faahfaahin doonaa waa arki doonaa